marka hore waxaan kuugu baaqayaa inaad subscribe dhahdo channelkeena gambaleelkana aad furato muuqaaladeennana aad like saarto wixii talana aad commentiga noogu soo dhiibto asxaabtaadana aad la wadaagto mahadsanid waa koobkii 46aad ee Copa America oo ah tartan caalami ah oo ay abaabulaan xiriirka kubadda cagta South America ee CONMEBOL loo yaqaan waxaa lagu qabtay 2019 dalka Brazil waxaana uu ka socday intii u dhaxaysay 14 June ilaa 7 July 2019 toddoba goobood oo ka mid ah magaalooyinka dalka Brazil. Chile ayaa ahayd ku guuleystayaasha labadii jeer ee ugu dambeysay difaacanaysan koobkan iyadoo ku guuleysatay koobkan 2015 iyo 2016 laakiin waxaa ka saaray koobka sanadan Peru oo iyadu semifinalka ku reebtay halka kaalinta saddexaadna ay ka baxsatay xulka Argentina. Brazil ayaa ku guuleysatay markeedii sagaalaad markii ay finalka 3-1 kaga badisay Peru. Argentina ayaa kaalinta saddexaad soo xiriirsatay xilli Chile ay iyana afaraad gashay. goobaha lagu qabanaya haddaan eegno 14 June 2018 ayuu madaxweyne ku xigeenka xiriirka kubadda cagta Brazil CBF loo soo gaabiyo Fernando Sarney ku dhawaaqay in 5 magaalo ay martigelin doonaan tartanka: Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte iyo Porto Alegre ayuuna sheegay inay martigelin doonaan. liiska garoomadana waxaa la go'aamiyay 17 September 2018. garoomada oo kala ahaa Maracana oo ku yaal Rio de Janeiro, Durumbe iyo Arena Corinthians oo ku yaala São Paulo, Stadio Mineiro oo isna dhaca magaalada Belo Horizonte, Arena de Grêmio Porto Alegre iyo Itaiba Arena Fonte Nova oo Salvador ku yaala. kulankii furitaanka waxaa lagu qabtay garoonka Morumbe Stadium ee São Paulo halka finaalkii lagu qabtay Maracana Stadium ee Rio de Janeiro. marka laga reebo 10 kooxood ee CONMEBOL ee iyagu tooska uga qayb gala, CONMEBOL waxay markii hore qorsheynaysay inay ka qayb qaataan tartanka ilaa 16 koox. CONMEBOL ayaa ku dhawaaqday 3 kooxood oo ka socda CONCACAF iyo 3 kooxood oo ka socda xiriirka kubadda cagta Aasiya ee AFC loo yaqaan in lagu martiqaadayo. 12 Abriil 2018 ayaa lagu dhawaaqay in Qatar martigeliyaasha koobka adduunka 2022 uu aqbalay martiqaad uu kaga qayb noqonayo tartankan. 4 May 2018 CONMEBOL ayaa ku dhawaaqday in tartanka lagu ciyaari doono 12 kooxood oo qura. Qatar ayaa ka soo muuqata markii ugu horeysay Copa America iyadoo noqotay kooxdii ugu horeysay ee Carab ah ee ka qayb gashay tartankan, halka Japan ay u ahayd markeedii labaad 1999 ayayna ka qayb qaadatay tartankan. tan sidoo kale waa koobkii ugu horeeyay ee Copa America oo aan ka soo muuqan xulalka ka ciyaaray CONCACAF tan iyo markii la bilaabay in xulal lagu casuumo. isku aadka tartanka ayaa dhacay 24 June 2019 2 saac iyo bar habeenimo xilliga Brazil daarta dhaqanka ee Cidade das Artes ee Rio de Janeiro ayuuna ka dhacay. saraakiishii ciyaaraha iyo garsoorka haddaan eegnana guud ahaan 23 garsoorayaal ah iyo 23 garsoore caawiyaal ah ayaa loo doortay tartanka 21 March 2019. ciyaaryahanada xulalka matalayana koox kasta waa inay soo gudbiso liiskeeda 23 ciyaaryahan kuwaasoo 3 ka mid ah ay ahaadaan goolhayayaal. xeerarka looga soo baxayo guruubyada haddaan eegnana gruubka waxaa looga soo baxaya dhibcaha la kala helay, farqiga goolasha, tirada goolasha ay gruubka ka dhaliyeen, dhibcaha la kala helay kulamadii ay iswajaheen labada kooxood, tirada goolal ay iska dhaliyeen iyo ciyaar wanaag ayaa lagu soo kala baxayay. heerka buugbaxdana markii aan eegno haddii ay laba kooxood ay barbaro isku mari waayaan 90 daqiiqo kuwa tarafeynalaha lagu madarayo wax extra time ah si toos ahna waxaa loo aadayaa goolkulaadyo, halka semifinalka iyo finalka hadday labada kooxood isku dhaafi waayaan barbaro lagu darayo 30 daqiiqo oo dheeri ah, kadibna hadday ismari waayaan si toos ah loo aadi doono goolkulaad. waxaase ka duwan kulankii loogu soo baxay kaalinka saddexaad oo isagu si toos ah loo aadayo 90 daqiiqo kadib haddii barbaro la isku mari waayo.
Goolashii la iska dhaliyay Copa America 2019 waxaa la iska dhaliyay 60 gool 26 kulan oo la ciyaaray, celcelis ahaanna waa 2.31 gool kulankiiba. Gooldhalinta waxaa ku guuleystay Everton oo Brazil ka tirsanaa, kaasoo dhaliyay 3 gool, halka Paulo Guerrero oo isna 3 gool la yimid, balse gool kulaad ay ka mid ahayd goolashiisa. abaalmarinadii la bixiyay markaan eegnana, kadib markuu soo idlaaday tartanka waxaa la bixiyay abaalmarino lagu abaalmarinayo ciyaartooyda. Daniel Alves, kabtankii xulka Brazil, ayaa ku guuleystay xidigii ugu wacnaa tartanka, halka gooldhaliyaha ugu sarreeya uu noqday Everton oo isna Brazil ah. Goolahayii ugu wanaagsanaana waxaa loo doortay Alisson oo isna shabaqa u ilaalinaya xulka Brazil. Kooxdii ugu wanaagsaneedna xulka Brazil ayaa ku guuleysatay, oo sidaas waxay noqotay in dhammaan abaalmarinadii ay Brazil wada aruursadaan. Markaan ku xasuusiyo heestii astaanta u ahayd tartankan, waxaa lagu magacaabaa Fibra Continente, waxaana ku luuqeeyay fanaanada reer Brazil Leo Santana iyo fanaanka reer Colombia Karol G. dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee laga diiwaangeliyay tartankan ayaa ahaa kaarkii casaa ee loo taagay Lionel Messi kadib markuu dagaal la galay daafac ka soo horjeeday kulankii loogu tartamayay kaalinta 3aad kaasoo u dhaxeeyay xulalka Argentina